waxaan aaminsanahay dalkaygu inuu ka fursad badan yahay dalalka nagu xeeran waxaan aaminsanahay inaan noqon karno waddanka ugu qanisan Afrika maanta waxaan barbar dhigaynaa maalintii ay walaalaheen xorriyada u dagaalameen waxay iska xoreynayeen gumaysi iyagoo raba inay xorriyadooda soo ceshadaan maanta annaga waxaan hor taagan argagixiso waxaan hor taagan abaar waxaan hor taagan kala qoqobnaan waxaan hor taagan qabyaalad waxaan hor taagan rajadeena oo daciiftay waxaan hor taagan hamigeennii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay iyadoo ay intaasina hor taagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar